Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. Waa mar kale iyo barnaamijkeennii qisooyinka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya haddii Allaha awoodda la oggolaado anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki, waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki Channel. barnaamijkeena qisooyinka qisada aynu ku soo qaadan doono waa qiso aada u xiiso badan isla markaasina ka turjumaysa qiimaha iyo ahmiyadda ay leedahay sadaqadu iyo weliba inuu qofku uu caawiyo dadka masaakiinta ah ee jilicsan. maalin maalmaha ka mid a ayaa markaasi waxaa ku dhacday xanuun aada u daran. xanuunkaasi waxa uu ka asiibay dhinaca wadnaha, waxa uuna markaasi uu hayay muddo fara badan. kadib markaasi waxa uu tegay dhakhtar degan dalka Jarmalka. dhakhtarkii ayaa markaasi markii uu baadhay ee uu ku sameeyey checking iyo weliba shaybaadh ayaa waxa uu ku yidhi waxaa laga helay oo ku haya xanuunka kansarka wadnahaaguna aad ayuu markaasi uu hoos ugu dhacsan yahay. waxa uuna xanuunkani noqon karaa mid aad ku dhiman karto amaba se aad ka badbaadi karto. 50% waxa uu ku horseedi karaa inaad ku dhimato, 50% waxa uu ku horseedi karaa in markaasi xaaladaada caafimaad lala tacaalo. dhakhtarkii ayaa ninkaa ugu jawaabay sidaasi. kadib markaasi ninku waxa uu ahaa nin muslina oo alle ku kalsoon, wax walbana ogsoon inuu ku dhici karo uun qadarka alle. waxa uu ku yidhi waxa aan jecelahay in aan aado dalkaygii islamarkaasina aan u noqdo dadkii aan markaasi aan ka soo tegay iyo faamiligaygii si aan markaasi aan uga soo ducaysto. haddiiba ay jireen cid dhib iyo markaasi ay waxna dhex mareenna aan isu soo cafino. kadib dabadeetana waxa uu yimid dalkiisii. markii uu sidaasi u soo galay ayaa waxa uu la kulmay islaan meel fadhida oo markaasi aruursanaysa hilib iyo weliba lafo. kadib markaasi waa uu u yimi, waxa uuna ku yidhi waa maxay waxyaabahani aad aruursanayso? kadib waxa ay ku tidhi waxaan haystaa caruur yaryar oo agoona. toddobaadkii hal mar ayaa laga yaabaa inaanu hilib aanu cunno, balse ma awoodno waxaanu ku iibsano. waxaanuna halkani ka aruursanaynaa waxyaabaha dadku ay iska tuureen. kadib dabadeetana waxa uu u tegay ninkii hilibka iibinayay, waxa uuna ku yidhi islaantani waxa ay ku imanaysaa toddobaadkiiba 2 jeer, waxaanan doonayaa inaad siiso hilib. lacagta iyo weliba waxyaabaha markaasi ay jeceshahay ee ay wax ku qaadanaysona aniga ayaa ku siinaya. hilibka lacagtiisa aniga ayaa ku siinaya, waxyaabihii kale ee ay doonto in ay qaadatona waa inay markaasi ay qaadataa, oo wax kasta oo markaasi ay ka iibsatoba aniga ayaa markaasi ku siinaya. ninkii xanuunsanayay ee kansarku uu hayay ayaa sidaasi ku yidhi ninkii iibinayay hilibka. kadib dabadeetana islaantii ayaa mar walba waxa ay toddobaadkiiba ay u iman jirtay ninka hilibka iibinaya, waxaanay ka qaadan jirtay hilib. lacagtiina isaga ayaa markaasi siinayay. dabadeetana ninkii ayaa waxa uu markii dambe ku noqday dhakhtarkii daweyn lahaa. dhakhtarkii markii uu ku noqday ayaa waxa uu dhakhtarkii mariyey baadhitaan caafimaad, balse waxa arrinta la yaab kale ee markaasi uu dhakhtarku la kulmay ay noqotay in uu ninkani wax xanuunaba aanu qabin. kadib dabadeetana dhakhtarkii ayaa waxa uu ku yidhi waa maxay dawada aad isticmaashay iyo weliba dhakhtarka aad u tagtay? waxa aad u tagtay dhakhtar aada u fiican, islamarkaasina qalabka uu haysto iyo weliba dawooyinkiisa iyo tayadiisu ay aada u fiican yihiin. waxa uu ninkii ku yidhi uma tegin wax dhakhtara, balse waxaan markaasi ninkii waxa uu ku yidhi uma tegin wax dhakhtara. dhakhtarkii ayaa ku yidhi haddaa maxaa bedelay wadnahaagii iyo weliba xubnihii jidhkaaga ee markii hore aad la il darnayd xanuunkani ku haya?
waxa uu ku yidhi waxaa i beddelay Allaha weyn ee awoodda badan ee markaasi qof kasta oo u toobad keena isla markaasina isaga barya ka aqbala baryadiisa. Waxaan caawiyey gabadh masaakiin ah oo markaasi meel fadhida. Taasi darteed ayaa markaasi ii horseeday in uu xanuunkii uu yahayey uu iga tago. Sidaasi waxaa yidhi ninkii xanuunsanayey. Kadib dabadeetana ninkii waxa uu dhakhtarkii ku yidhi wax xanuuna oo ku haya ma jiro, jidhkaaguna waxa uu caafimaad qabaa sidii markii hore ee aanay waxba kugu dhicin aad ahayd. Dhakhtarkii ayaa markaasi waxa uu yaqiinsaday sadaqada iyo wanaagga iyo weliba iskaalmaynta iyo alla ka cabsigu inay tahay waxyaabaha badbaadiya qofka. Isagiina halkaasi ayaa uu ku islaamay. Barnaamijkeenna waxaynu markaasi aynu kaga faa'iideysanaynaa qiimaha iyo ahmiyadda ay leedahay iscaawinta iyo weliba in uu qofku marka uu dhibaataysan yahay uu xagga Alle u cararo. Inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.